Asalaamu calaykum soo dhawaada muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa waxyaabo ilmaha ka saacida in miisaankooda ziyaado ama ay ku cayilaan waxyaalaha ka saacida ayaan muuqaalka kaga hadli doonaa insha Allah soo dhawaada walow ay jireen muuqaalo hore oo 2 iyo 3 meelahaas inay yihiin aan u maleynayo aan kaga soo hadalnay haddana insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan mid kale aan maanta ku darno ka hadlayo ilmaha wax miisaankooda ziyaadiyo ama ilmaha cayilaya caatada ah haddii aad marka kugu horeyso ana soo booqataa subscribe noo saar gambalaalkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan haddii familka ka tirsan tahay like noo saar asxaabtaadan u sii share gareyn soo dhawaada mar labaad haddii cunugaada uu ku jiro xilliga nasnuuga waxa ugu fiican ilmaha ay ku cayilaan waa caanaha naaska hooyada waa waxa ugu muhiimsan uguna fiican ee number 1 ah ay ku cayilaan ilmaha waa caanaha naaska hooyada waxa wanaagsan hooyada in ayada cunto fiican qaadata wax badan oo dareer ahna ay cabtaa si naaskeeda caano fiican u soo galaan oo cunugiina korinshihiisa u hagaaga uguna cayilaan marka laga soo tago cuntooyinka bahalkina caanaha naaska waxaa ku xigo sida fawaakihda oo kale oo ilmaha ay ku cayilayaan oo kale khudaarta ah fawaakihda sida waxaa kamid ah oo kale mooska maangaha oo kale cambaha uu ku mid yahay waxyaalaha ilmaha ay ku cayilaan faroolaha oo kale mishmishka qofkii heli karo kale meel laga heli karo qofkii joogo kale ilmaha way ku cayilaan zeytuunka oo kale ilmaha way ku cayilaan waxyaalaha ilmaha ku cayilaan waxa waaye wax walba faakiha walba ee dhadhankeeda marka ay dhimsaan macaan yahay ilmaha waxay ka saacidaa inay cayilaan lianna waxa laga helaa sucraad xaraariye waxa la dhaho wax ilmaha ka saacida inay cayilaan ayaa ku jiro faakiha walba oo dhadhankeeda marka dhimsa aragta inay macaan tahay ugu rono ilmaha lianna waxay ka saacidaa inay cayilaan hadda sida faroolaha kale dhadhankeeda macaan iyo dhanaan isku darsan waaye saytuunka oo kale cambaha oo kale mooska oo kale maxaa la yiraahdaa canabka oo kale ilmaha way ku cayilaan lianna macaan uu leeyahay sabiibka oo kale ilmaha way ku cayilaan asagana macaan uu leeyahay wax walba oo faakiha ah oo marka dhimisa aragta inay macaan leeyihiin waxay ilmaha ka saacidaa iyo dadka waaweynba inay cayilaan waxa wanaagsan inay hooyada ugu roonaato ee siisaan waxyaalaha kale ee ilmaha ka saacida inay cayilaan waxa kamid ah ukunta qayb weyn ka qaadataa inay ilmaha ku cayilaan waa hadii hooyada ay siisaa si saxan u siisaa maahan ukunta inay sideeda ku siisaa waxa qurux badan inay cunuga ka karisaa hore waa ugu soo hadalna muuqaal ukunta kaga hadlayni hooyada waa inay ka karisaa waxa kale ee ilmaha ay ku cayili karaan waxa waaye waxyaalaha miraha ah qaleelka ah ayagana ilmaha way ku cayilaan sida waxa kamid ah kala looska sisinta xulbado kale ayadana way ku cayilaan dhamaan wixii aragtid inay miro yihiin hadana ay qalalan yihiin ilmaha waxay ka saacidaa 100% ayadana inay cayilaan hadaa doonto waxa ugu dari kartaa sisinta iyo xulbado kale intaas ugu darto wax macmacaan ha ugu dartid aan cunuga siin kartaa oo ku cayilaa oo waliba markii sisinta iyo xulbada inta la isku riiqo ayadoo riiqan oo biyana aan lagu darin oo biyo caadi walaacay laga dhiganin mirina aysan ahayn oo kale oo reeqo wax yar oo dhicaan loo sameeyaa hadii caano ay ugu dari kartid oo kale caano kula reeqdaa oo kale wax macmacaan ah cunuga dhadhankiisa jeclaysiin karo kale hadaa moos ugu dari karto qudaar waxyaalo macmacaan ah cunuga hadii cunug sanadka weyn oo kale malab ugu dartaa si cunuga dhadhankeeda oo u jeclaada ayadana 100% wax si ugu fudud ilmaha ay ugu cayilaan sisinta iyo xulbada marka la isku reeqo moos iyo caano iyo malab iyo hadii cunug sanadka weyn yahay waa sanadka yar yahay qudaar iyo wax kale ugu dari kartaa laakiin sanadka weyn yahay malab ugu dari kartaa insha Allah waxaan u badan tahay cunugaas 2 isbuuc ugu daytay inaad isbedelka dareentid hadii Ilaahay yiraahdo waxyaalaha kale ilmaha ay ku cayilaan waxa kamid ah hilibka kale sida hilibka gaduudan hilibka xoolaha iyagana ilmaha way ku cayilaan doorada kale maasha Allah si fiican isbedel fiican ka dareemay cunuga oo ayagana way ku cayilaan ilmaha waxa kale ilmaha ay ku cayili karaan oo ka saaciday ilmaha inay cayilaan waxa kamid ah caanaha iyo waxyaalaha caanaha laga soo saaro sida subaga caanaha laga soo saara yogurtka kale asagana caanaha laga soo saara caanaha xoolaha caadiga ah wala xataa caanaha gasaxmanka ku jira ayagana ilmaha way ku cayilaan waa caanaha iyo wixii caanaha laga soo saaro ilmaha way ku cayilaan cunuga wuxuu ka dareemaysaa miisaan iyo isbedel fiican
waxaa kale oo ugu muhiimsan hooyada haddii intaas aan soo sheegnay ay siisaa oo kale cunuga waa in hooyada ay u fasaxdaa ciyaarta. Cunug hadduusan ciyaarinin uusan energy-ga badarkii aa siisay hadduusan soo gubin cunuga ma baahahayo badar labaadna ma kaa cunayo. Jimicsigana waxay ilmaha ka qayb qaadanay ilmaha kale hooyooyinka badanaa waxay sameeyaan qadada markay saas u siiyaan iliin hore ka seexo. Cunugii inuu ciyaar dhan hooyada duhurkii ma ogola qadada markay ku ogaataa kuna see leedahay seexo. Cunugaas maxaa u diidaa marka hadduusan cayirin xataa inuu asagu laga dhuudhuuban la cunuga calool ka soo baxdo. Se cunuga jaanis uu caloosha badarka aa ugu shabto qadadii aa ka dhirtisay iyo biyihii caanihii aa siisay 20 daqiiqo xataa maadan siin cunugii uu ku badboodo ku ciyaaro hore ka seexa dhahdeen. Cunugii waxay u badan tahay marka calooshiisa inay iska fido cunuga ku caatay oo dhuudhuuban xoogaa caloosha ka soo horeyso. Waxaa qurux badan hooyada markay cunuga kala qada siisaa inaysan hore ka seexin oo kale haddii ilmaha aysan iskuul dugsi midna ku aadayn guri joog yihiin oo kale waana 5 saac bar qadadooda siisaa 6 saac bar marka la gaarin aa seexisaa. Haddii inay ku nasaan arabtid saacad ayagoo cunugii uu cunay ay ka soo wareegatay inuu seexda ayaa fiican. Ma ahan marka badarkii biyihii aa ku ogaatid in hore sararta ka saartid oo hore ka seexda aa dhahdid ma fiicno. Xataa ilmaha kaliya ma ahan oo xataa dadka waaweyn waxaa qurux badan qofka markuu cuntada cuno inuu isla markii hore uusan sararta ka tagin uu socsocod soo sameeyaa si cuntadii ay u kala degto jirkiisa u gashaa calooshiisa cuntadii dul saaran ka baxdaa. Haddii cunuga cuntada soo cun hore seexa aa ka dhahdid hurda raaxa leh ma helayo cunugii. hurda raaxa leh ma helayo cunugii hurdo fiican oo jirkiisa uu ku nasto asagan raaxa uu ku dareemo ma helayo. Marka waxaa qurux badan hooyada in ilmaha ay ciyaar u fasaxdaa markay cuntada cunaan si cunuga u soo baahdo haddana hadhowti mid kale oo kaaga cuno. Mida kale hooyada markay rabto in cunugooda u cayilo waxaa qurux badan 3 waqti oo waaweynka ah 3 waqti oo kale oo yar yar ah inay daba joogto. Quraacda marka la siiyo kale cunugii subaxii markuu soo kaco 4 saac oo kale inaa siisid oo kale waxyaalo qudaar ah 6 saac markuu qadi 9 saac oo ka soo kaco inaa qudaar siisid markuu caawa ku casheeyo kale 12 saac cashada siisid. Haddii cunug 2 saac oo kale u seexahayo kale 12 iyo saac 1 saac habeenimo 7 habeenimo meelaas marka la maraa wax yar oo macmacaan ah aa siisid okay waa ayadana 3 waqti oo waaweyn oo inay 3 waqti ama 2 waqti oo kale yar yar ah ee daba socotaa si cunug miisaankiisa isbedel ugu dareentid. insha Allah intaas aan kusoo gabagabeynaa haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqataa subscribe oo sar gambalelkan furso fiidiyoo cusub ku soo gaaraan hadaa hore nool joogtaan like noo saar saxaabta u soo share garay soo dhawaada.